marka koobaad laba arrimood ayaa muhiima inaan kala qaadno marka lagu jiro xaaladda caadiga ah madaxweynaha muddaxileedkiisa inta lagu jiro madaxweynuhu awood uma lahan mana jiro qodob dastuuri ah oo tilmaamayo inuu hakin karo shaqooyinka prime ministerka ama wasiirka koobaad kaliya wasiirka koobaad baarlamaanka ayaa kalsoonida siiyo baarlamaanka ayaana kalsoonida kala laaba karo hadda waxaa lagu jiraa marxalad taa ka duwan oo ah marxalad muddaxileedka madaxweynuhu dhammaaday muddaxileedka madaxweynuhu marka uu dhammaado madaxweynuhu waxa u furan in doorasho uu dalku aado awood uma lahan inuu tallaab la xiriirto tallaab cusub inuu qaado ama ha noqoto shaqaka joojin ama ha noqoto magacaabis ama ha noqoto tallaab kaleeto cidda keliya ee dastuurku uu awoodda siinayo waa xukuumadda oo si xilgaarsiin ahaan ah u shaqayn karta sida lagu xeeriyey qodobka 103 ee dastuurka federaalka meelgaarka ah mar haddii uu dhammaaday muddaxileedkii madaxweynaha iyo muddaxileedkii baarlamaanka awoodihii dastuuriga ahaa ee dastuurka uu siiyey labadaas hay-adood halkaasay ku dhammaadeen laakiin xukuumaddu waa ka duwan tahay oo dastuurku wuxuu siiyey maxay tahay awoodda baarlamanka iyo madaxweynahana ka dhammaanaysa xukuumaddan usii joogaysa aada u mahadsan tahay sida aan ogsoonahay awoodaha hay-adaha dastuuriga ah waxaa bixiyo dastuurka madaxweynaha sida aan ogsoonahay waa lasoo doortaa muddaxileedkiisu waa 4 sannadood oo ka bilaabanayso marka madaxweynaha la dhaariyo baarlamaankana sidaasoo kaleeto waayay muddaxileedka sidaas ayuu uga dhammaanaa markii 4 sano ay dhammaato laakiin xukuumadda maadaama laga rabo ayada shaqo maalinla ah oo maalin kasta soconayso lagama maarmaana ay tahay in bulshada loo adeego ayaa waxaa loo siiyey awood inay sii wado shaqadii ay horay u haysay ilaa xukuumad cusub laga soo dhisaayo oo xilka ay kala wareegayso si firaaq dastuuriya uusan u imaanin laakiin madaxweynaha iyo baarlamaanka awoodda noocaasoo kaleeta dastuurku ma siinin mana jiro qodob tilmaamayo marka muddaxileedkooda u dhammaado inay shaqada sii wadi karaan marka sidaas ayay ku kala duwan xukuumadda baarlamaanka iyo madaxtooyada sidaasay kala duwan yihiin labadan hay-adood ma jiro qodob dastuuri ah oo siinaya inay shaqada sii wadi karaan hay-addan ah xukuumadda waxaa jiro qodob dastuuri ah oo tilmaamayo inay shaqada sii wadayso ilaa xukuumad kale laga soo dhisaayo marka ra-iisul wasaaruhu ma samayn karaa magacaabis iyo xilka qaadis muddadaas aada u mahadsan tahay ra-iisul wasaaruhu awoodaha uu leeyahay waxaa kamid ah shaqadii caadiga ahaa ee horay u socotay in uu wado oo shaqooyinkaas dardar geliyo sida caadiga u socoto shaqooyinka kale oo qaban kara waxaa kamid ah shaqooyinka la xiriiro ammaanka qaranka xasiloonida iyo deganaashada guud ee bulshada haddii marka arrimaha ra-iisul wasaaruhu oo qabanayo ay saameyn ku leeyihiin amniga guud ee qaranka xasiloonida bulshada iyo deganaashada ra-iisul wasaaruhu waxay ka mid tahay arrimaha loo idmaday ee soo hoosgelayo fasiraadda iyo micnaha qodobka 103 ee dastuurka federaalka meelgaarka marka iyay tahay hadda inay go-aan ka gaaraan marka madaxtooyada iyo xukuumadda ay saa isku hor fariistaan xaggee la isla aadayaa hay-adihii la isla aadi lahaase ma yihiin hay-ado jiroo shaqaynaya aada u mahadsantaha marka koowaad awood isku qabsi su-aal ayaa ka horeysa su-aashaas oo ah ma jiraan laba hay-adood oo awood dastuuriya leh oo awood isku qabsanaya maanta ma jiraan
hay-adda keliya ee dastuurka awood siiyey waa xukuumadda. madaxtooyadu wax awooda oo dastuurka uu siiyey ma jiraan. hase yeeshee markii arrintaas laga soo tago dastuurku wuxuu qeexayaa in la dhiso maxkamad dastuuri ah. maxkamadda dastuurkana hadda ma jirto maanta. booskaas waxaa geli karo maxkamadda sare ee dalka. waxayse geli kartaa marka labada xafiis ama xafiiska prime ministerka ama xafiiska madaxweynaha midkood oo maxkamadda dacwo geysto asigoo weydiisanayo in la kala saaro arrimaha taagan ee laysku hayo.